saddex khalad oo weyn ay sameeyeen dadka markay guriga iibsanayaan ku sheegaya waliba ta saddexaad ayaa ugu daran dadkan arana waxay u sameeyeen laakiin khaladahan waa khalad fara badan oo dadka kaga lumeen lacag ilaa 100,000 lacag gaarayso maanta waxaan ku sheegaya khaladahaasi saacadiga kaga wadbaad adiga qoyskaada laakiin haddii aan ugu cusub tahay markii wadana soo boqotay tahay magacaygu waxa la yiraahdaa Daahir bulshada waxaan ka caawinaa gurigoodana iska sii gadaan guri cusub inay iibsadaan insha Allah igu soo boqolsadkayga sahanrealty.com waxaan la jireynay program bulshada kaga caawinaa gurigoodana ku bixiyaan 5 sano ilaa 7 sano inaan ku bixiyo taasi oo ku badbaadin doonta lacag ilaa 400 ilaa 800 kun ah oo lacagaha faa'iidada laga sameeyo ama profitka ama interestiga laga sameeyo waxaan qaban doonaa wax loo yaqaan webinar-kan oo bulshada Soomaaliyeed iskugu imaan doona waa Zoom kaas oo ah dad wax iskugu imaanayo almost had already waxay sirrisgaray over 250 people sirrisgaray dadkaas oo rabay inay ka faa'iideystaan arrintan si qoyskooda xorriyad u helaan waxaan aadi kartaa website-keena fast mortgage freedom ashada ka toona fadlan isoo register asxaabta kamid noqo adiga qoyskaada xorriyad soo heshaan okay waa ku bilaabaya si waqti badan kaaga lumin so the first one arkay qaladaha weyn ay sameeyeen waxa kamid ah waxay isticmaalaan the wrong lender so badan waxa arkaysaa qof loo soo approve gareeyay $400,000 so then $400,000 ki yes lacagta fiican lacag badan waaye laakiin markuu processka qofku bilaabo ayaa waxa la leeyahay now lacag waxa laga rabaa another $40,000 laga rabaa hadii kale waxa uu maqalmisid qof baa basically loo sheegay inuu u qalmayo $400,000 and then waxa lagu leeyahay lacagti down payment closing cost ka baxsan another $40,000 min la imaata taas ay u dhacdaa usually the reason the lender ka isticmaalayaan reliable ma aha and mostly Soomaalida qof xilin xalima guri ka qaata heblow qofkaasan aadaya now waxa aada qof reliable lender oo fahansan then markii qofkaasi aadayso ha iska aadin waxa weystaa wax loo yaqaan loan estimate this loan estimate can exactly wuxuu ku tusayaa waxyaalaha ku kacay gurigan ama wax loo yaqaan closing disclosure waa ka codsan kartaa in uu ku tuso labada usually ma dhacdo closing disclosure markii property la gabagabeynaya la sameeyo laakiin the loan estimate ku siin kara the loan estimate ka exactly the down payment closing cost everything wax ku kacay soo ku tusaa hana u shop gareysanin rate-ka dadka maslaxa arka markay bangi aadayeen qof baa lacag la soo siiyay $400,000 oo ku yaraatay bangi kale u aadaya so bangi kale wuxuu ku leeyahay kugu daraya just got $450 ku siiyay dan uu shop gareysanay qofkii laakiin technically another lender aad $400,000 soo siiyay so lender saxbo aha laakiin kan kale wuxuu aadaya lacagta kale ugu daray so basically waxa rabaan qofka aad $50,000 jeebkiisina ka baxdo so technically there's no way lacagta ka keeni karaan technically markay numberada raan gareeyeen based on their income code markay fiiriyaan qofkan wuxuu qalmaa $400,000 so taa sameyn number 2 badana qaladaha weyn ay sameeyaan aan arkay waxa weeyaan ka dooranayaan real estate agentigooda so mostly waxa u dooranayaan real estate agentigooda waa cousin-kooda kala waay wuxuu ku leeyahay he's actually newly licensed waaye haduu real estate license soo qaatay he's my cousin I'll just help him out guess what yes you can do that caadi waa that's totally fine laakiin cilad waxa ka haysataa this person they have zero experience waxa dhan way ku cusub yihiin wax loo yaqaan jirta market update bada every week with the real estate ka like literally market update aan sameeyaa like every few weeks video waxa soo galiya like the city guri keeps and soo galiya the reason aan sameeyaa waxa suuqu isbedelaya so city aan soo qaata like hadii aad soo daawan videodaasi waxa soo daawan kartaa Woodbury, Shakopee, Plain, Edinburgh, Maple Grove, Bloomington every video hadaa aragto channelkayga waa ka soo helaysaa so all I'm saying is like this is your biggest transaction of your life waxa ku weyn aa iibsanaysa waay waxa u baahan tahay you need a professional not a favor ina qof u sameeyo number 3 waa qaladka ugu weyn ee sameeyaan bulshada Soomaalida arkay waa waxay codsanayaan in la caawiyo last minute already qof bay la shaqeynayaan hadda markay qof la shaqeynayaan bay ku soo wacayaan waxa ku leeyahay Daahiro qof baan la shaqeynaya dhibaatadan haysto maxaana dhacay markay taa dhacdo already qofkan wuxuu loos gareeyay lacagta aan ismaniga waa lacagta aan ismaniga dagaran waa lacag carboon oo dhigaysan marka guriga iibsanayso bay loos gareeyaan ama contract saxan contractiga hadda say kaga baxan malaha there's no way kaga bixi karaan ama gurigii inspection-kii buu ku dhacay basically ninka real estate agent-ga la shaqeynayay just lazy or whatever he didn't care so waxba uu sameeyay waxyaalaha loogu talagalay uu sameeyay warqad if waxba uu codsanin lirada hadda gabar ay soo wacsaday igu lahayd guriga ciladahaas ku ibaad like wiilkii wuxuu yiri sidaan ku qaadanayna it's like what do you mean yes mararka qaar waxa laga yaabaa multiple office inuu jiro guriga multiple office inuu jiro guriga uu jiro taas ay jirto kale mararka qaar guriga lirada dadka way skip garanayaan inspection-ka way dhacdaa that one first way in adiga assessment sameeysta basic la fiirsa guriga waxyaalaha ka qaldan basic hadii guriga like roof kale uu fiican yahay foundation ku fiican yahay windows ka fiican yihiin the furnace ku fiican yahay electrical wiring normal way yahay yes you can skip as always mar recommend gareeyaan ina inspection sameeysta yes laakiin mararka qaar multiple offers ay dhacayso way dhacdaa and then waxa arkaysa marka guriga ka hadlayo hadda gabadha hadda saas ku sheegay kale gurigaas already intay ku guurin ka hor waa unless way gelisa $40,000 waxaas way ka hortay kartay yes qofkaas waxa dooratay qof cousin-keedu ahaa nasiib daro hadda gabar Soomaaliyeed bay dooratay so yeah waxa kala dhacda arka badan qof wiil qof cadaan bay dooranayaan Soomaalida qofka cadaanka la shaqeynayay ayaa wuxuu ma fahmayaan oo isku wareerayaan waxa ku leeyahay ninkan wuxuu ka hadlaanay ma fahansani
yes adaa doortay qofka ninka cadaanka aad la shaqeynaysa adaa dooratay so waa inaad go'aan ka qaadanayso marka koowaad aad ka fiirsataa aad iska qaadanin because of like waxaad iibsanaysa waxa kugu qaalisan waay ama caruur waxa haysta teenager wax kula like yeah let's go with this why dude ay ku dhahayaan soo xaqi aadaysa dalakho ku dhex jirta nasiib darro wax laga qaban karo ma laha arintaasi waa xanuun badan tahay mostly waxaan isku dayaa inaan caawiyo waxaan uga jawaabi karo su'aalaha uga jawaabo laakiin arintaasi saad uga hortagto first waxa la shaqeysaa qof aad ku fahmayo luqadaada kugu fahansiin karo waxay kugu fahansiin karo qofkan aad dooranayso qof qualified inuu yahay oo inuu experience leeyahay ku qaadato waaye waxaa kaloo ku qaadanaysa qofkan just research ku samee website-kooda aad waxaa samaysaa video ay soo sameeyeen aad waxaas oo dhan soo ogaaw so intaad qofka aad dooran ka hor and as always waxaan ku talaya qofka inuu researchkiisa sameeyo intuu qof kale uu dooran ka hor it doesn't matter anigana ahayd qof kale it doesn't matter qofka dooranaysa adiga ku talataas ilaa research ku soo samee qofku wax ku fahansiin karo ma yahay waa saddexda qalad waliba qaladkana ugu dambeeyay already wax laga qaban karo ma laha this literally is just wax laga sameyn karo ma laha waan ka xumaay so haddii aad rabto gurigaada iska sii gadam guri cusub inaad iibsato as always waxaad soo booqan kartaa website-ka sahanrealty.com numberkiina shirada ka heli doontaa waxaa la jirayna program ah bulshada iskaga bixinaya gurigooda 5 sano ilaa 7 sano dad badan baa nagu soo biiri doono June dhexdeeda ayaan qaban doonaa insha Allah fadlan nagu soo biir asxaabta ka mid noqo adiga qoyskaada xorriyad saa u heshaan gurigan mortgage-kan ku daba socdo aad ugu walwalin insha Allah waxaad nagu soo booqan kartaa website-keena Fast Mortgage Freedom fadlan soo follow garee video aan soo aragto insha Allah wa salaamiya assalamu alaykum